magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ee Somaliland waxaa maanta lagu soo xiray shirkii nabadda oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday kaasi oo maalintii shalay ahayd uu ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo fuud culus oo ka tirsan madax dhaqameedka guud ee Somaliland. magaalada Ceerigaabo ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay marti gelinaysay wufuud kala duwan iyo marti tii ugu badnay tan iyo intii Somaliland dib ula soo noqotay xornimadeeda. waxaana uu shirkani ahaa mid lagaga shaqeynayo sidii Ceerigaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag ay u heli lahaayeen nabadgelyo buuxda oo la mid ah tii ka horeysay colaadii dhacday kal hore. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ay hareerihiisa fadhiyaan madaxda iyo duubabka dhaqanka kuwooda loogu ixtiraamka badan ee gudaha Somaliland ayaa maanta soo xiray shirkaasi. waxaana shirka goobjoog ahaa ugaaska guud ee beelaha Gudabiirsi ugaas Cabdirashiid iyo sidoo kale suldaanka guud ee beelaha Harti Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan. sidoo kale waxaa goobta joogay madax dhaqameedka guud ee Somaliland kale waxaana dhammaantood ay ka shaqeynayeen sidii maanta halkan ama madashan shirku ka socday ay u noqon lahayd mid wax midho dhala la isla meel dhigo. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan ahay laba guddi oo hawshan muddo soo daadihinaysay. marka waxaan si kooban u akhriyaa qodobo kooban oo aan isla soo ururinay oo 6 qodob ka kooban. beelaha walaalaha ah ee wada degan gobolka Sanaag oo in muddo uga socday shirka nabadda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland dhigay magaalada Ceerigaabo goboshiisa waxaa ka soo baxay qodobadan: 1. in nabadda iyo walaaltinimada lagu wada noolaado guud ahaan gobolka Sanaag iyo degmadiisa Ceerigaabo. 2. beelaha walaalaha ah ee wada degan gobolka Sanaag waxay isla qaateen inay ilaashadaan nabadgelyadooda, wada jirkooda, walaaltinimadooda iyo dowladnimadooda Jamhuuriyadda Somaliland. 3. waxa beelaha reer Sanaag isla qaateen in nabadda loogu baaqo lagana howlgalo sidii loo raadin lahaa cid kasta oo ka maqan gogosha nabadda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland dhigay. 4. maadaama gobolka Sanaag ay ka muuqato dib u dhac dhanka horumarinta ah beelaha gobolka Sanaag waxay xukuumadda Somaliland ugu baaqayaan in ay ka fuliso mashaariic horumarineed sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay ka dhigo. 5. waxaa lagu heshiiyey in guud ahaan amniga iyo nabadda gobolka Sanaag ay dowladdu ka mas'uul tahay. cid kasta oo nabadda cadow ku ahna ay dowladdu gacan bir ah ku qaban doonto iyada oo kaashanaysa shacabkeeda. 6. waxay beelaha gobolka Sanaag uga mahad celinayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland gogosha nabadda ee uu dhigay gobolka Sanaag iyo isku wadka bulshada Somaliland ee uu sida hagar la'aanta uga shaqeynayo. allah mahad leh. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha oo suuro geliyay kulankan maanta ballaaran oo halka la isugu yimi oo nabadda kow ka ahaa gogoshana dhigay iyo dowladda xukuumaddiisa iyo raggii kala shaqeeyay oo gacanta ka siiyey oo guddiyada ahaa iyo maamulka gobolka Sanaag degmo iyo gobolba iyo guddidii aan soo dirnay oo xagga ka soo magacawnay iyo guddidii madaxweynuhu soo magacaabay iyo dhammaan dadweynaha ka qayb qaatay hawsha nabadeynta aad baan ugu mahadnaqayaa waana salaamayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta oo ay tahay maalin taariikh leh oo halka aan isugu nimi nabadgelyada gobolka Sanaag intii ka qayb qaadataba waan uga mahad celinayaa waana soo dhaweynayaa waana maalin taariikhiya. madaxweynahana gaar baan uga mahadnaqayaa hawsha isaga oo ahaa garwadeen ka ahaa gogashana bilaabay raggii la qabanqaabiyay oo la qabtayna waa uga mahad celinayaa. madaxweyne waxaan leeyahay inta harsanna dhamaystirkeeda aday kugu taallaa iyo dowladdaada. marka annaguna garab baan kugu siinaynaa diyaar baan u nahay wixii dhibanna waa dhamaystiraynaa. cid allaale ciddii ka qayb qaadatayna waa uga mahad celinayaa waana u ducaynayaa. gobolka Sanaag ama degmada Ceerigaabo
waxaan ilaahay uga rajaynayaa dadweynaheeda iyo ummadda ku noolba in ilaahay barwaaqo iyo horumar iyo nabadgelyo ilaahay isugu soo celiyo ciddii ka maqan oo hadda inaga dhimanna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa iyagoo nabadgelya in ilaahay noo keeno laguma kala maarmi karo waa meel dad ehela ay ku wada nool yihiin cid gaara oo keli ugu noolaan kartaa ma jirto cid gaara oo goonni uga maqnaan kartaana ma jirto waxaan ugu baaqaynaa ciddii naga maqanna inay si nabada inoogu soo xiroodaan oo inoogu yimaadaan inagoo wada jirana aynu dhinacyada wada qabanno nabadgelyo caama iyo wanaag iyo sharaf iyo sidii ay inoo ahaan jirtay degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag aynu isugu soo noqonno baan ilaahay ka rajaynayaa cid allaale ciddii ka shaqaysana waa u mahadnaqayaa waan u ducaynayaa waxaan leenahay kolba annagu waajib aanu qaadanay bay ahayd wax aanu cid wax ugu danaynaynay ma ahayn wax ummaddeena iyo dadkeena iyo dalkeena aynu ugu danaynaynay bay ahayd waajibkeygii baan gudanay wixii noo harsanna diyaar baan u nahay waan dhammaystiraynaa qof kastoo gobolka Sanaag ka mida waxaan u soo jeedinaynaa inuu hawshaa inagu aynu hormood u noqono hadday gobolka iyo maamulka iyo odayaasha iyo cuqaasha iyo sadaadiinta ay tahay inaga hormood ka noqon karnaa inagaana goyn karnaa nabadda Ceergaabo si wada jira inaynu uga wada shaqeyno baan ka codsanayaa dhammaan wixii waxgarada haweenka dhalinyarada waxgaradka salaadiinta maamulka gobolka intaba waxaan ka codsanayaa inaynu hormoodka koowaad inagu ka noqono markaas inagana ciddii aynu u baahanahay waxay nala qaban kartaa aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha iyo dawladdiisaba iyo shacabka reer Ceergaabo ee ka qayb qaatay nabaddan maanta aynu halka isugu nimi oo inoogu xidhantay nabadda fayskeedii koowaad inaynu maanta halka ku soo gabagabaysano wixii noo harsanna waa dhammaystiranaynaa insha Allah waxaan rajaynaynaa guul iyo gobonimo assalaamu calaykum waraxmatullaahi الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka ugu horeysa waxaan salaamayaa madaxweynaheena jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kaloon salaamayaa gudida nabadgelyada waxaan salaamayaa garaadka Saciid Suldaan Saciid Suldaan Ali Shire oo taariikh weyn leh oo muddo badan ay awoowayeen ay dhulkan ka soo shaqeeyeen Ingiriisku aad ay uga soo halgameen markaana labadoodu ay ku xidhnaayeen iyo suldaanka Suldaan Ali Shire iyo ugaasdoodi ay ku xidhnaayeen Kabaraan iyo Faarax Umar saddexdaa nin oo ka soo horjeestay Ingiriiska oo xoog dhulkeena inuu ku qabsaday rabay maanta waxaan u joognaa nabadgelyada Soomaaliland ayaan maanta iskugu nimid alxamdulillaah rabbil caalamiin suldaan waxaan ku oran lahaa waxaad ka casuuman tahay gobolka Awdal baan kugu soo dhaweynayaa insha Allah maanta rajada weyn madaxweynaheena suurta galiyay fadhi golahan inoo sameeyay shirkan guud oo nabadgelyada muddo wuxuu joogaa 9 bilooda waa madaxweynaha xaqa oo daacadda ay ka muuqato wuxuu ballan qaaday xilligii ololahana wuu fuliyay tallaabooyinkaasi way noo caddahay aniga jigjiga ayuu madaxweynuhu ii soo diray gudida nabadgelyada oo saaxiibkay door on jaamacadda Gaherku wada jirnay aan ka soo wada baxnay iyo kooxda Cabdiqaadir Jirde ay hogaaminaysaa jigjiga igu yimiday ana wadanka ka maqnaa oo xabad laga bixiyay maanta waxa nabadgelyada keenay waa madaxweynaheena qaranka Allah barakeeyo cimriga Allah u dheereeyo aad iyo aad buu inoo soo dhaweeyay heshiiska iyo nabadgelyada wadana Allah la qabto muddo yar oo inta 9 bilood aan ka badnayn buu waxa soo hawlo ku qabtay madaxweynuhu garbihiisaan joognaa labada garab baan ka joognaa wax walba waan la qabanaynaa maanta waxaan nii ballan qaadayaa itiraafkiina inuu qacanteena ku jiro waan ka shaqaynaynaa ilaa dawladda Mareykanka waan u raaciyaa madaxweynuhu ii sheegay wax walba waan la qabanaynaa
waad ku farxi doontaan dhulkeena barwaaqo soo socota nabadgelyada moral ugu horeysa inaan nabadgelyada ka wada shaqeyno waajibina saaran weey qarankeena meel kasto ay wax ka jiraan galbeed iyo bariba inaan nabadgelyada ka shaqeyno wixii nagu soo duulaan aan wada jir u qabsano ayaa naga ballan qaadkaasaan madaxweynaha u qaadnay waana ka dhabaynaynaa annaguna inaan nabadgelyada sideeda halkeeda dhigno aad iyo aad baan u mahadsannahay midnimada aan sii wadno Somaliland oo mida shacabkeeni oo mida madaxdeeni iyo dhaqankeeni oo mida Allah in barakeeyo maalin weyn weeye maanta oo taariikh weeye taariikhdii dib ay isku soo celisay maantana nabadgelyadaasaan ka shaqeynaa insha Allah in barakeeyo ilaahay caafimaad hayna wada siiyo dhulkeena barwaaqo Allah inooga dhigo ilaahay roob raxmad Allah inoo keeno dadkeenana ilaahay caafimaad ha wada siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waanigoo Sakariya Jeelaan iyo warbixintan idin soo jeedinayay tan iyo intaan ku kulmayno warbixin sidan oo kale oo kaga hadlayno arrimaha wanaagga iyo nabadaynta gobolka Sanaaga ama guud ahaan Geeska Afrika waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh